filimkan waxa uu bilaabanaya iyadoo la joogana qarnigii 6 ee milaadiga waana casrigii jaahiliga oo fariintii samaawiga ahayd ee kala go'day waxayna dadkoo dhan sugayeen nabigii ka saari lahayn jahliga ay ku jiraan xilligaasna magaalada Makka waxay ahayd magaalo qani ah tirada ganacsatada ee ku gadaysan sanamyada darteeda markastana waxa ay la imaajireen kaahinadii joogayna saxaraha sanamyadooda iyo ilaahyadooda Kacbada agteeda ilaa ay ka noqotayna guriga sanamyada waxaana dhex yaalay ku dhawaad 360 ilaah oo kala duwan waxaan arkaynaa magaalada Makka al-Mukarramah iyadoo la joogana sanadkii 610 ee milaadiga waxaan arkaynaa Abu Sufyaan oo ag taagan Kacbada agteeda waxa uu la hadlayay oo la taagnayn Abu Jahl oo ahayna mid kamid ah ragga Quraysh waxa ayna fiirinayeen xaalka suuqa aad ayna ugu faraxsanaayeen maxayl waa uu kala socday suuqa waxa uu ahayna mid wanaagsan hal mar Abu Sufyaan waxa uu arkay safarleedii ka imaatay Suuriya inay soo galayaan waxa uu ka dareemay inay daalan yihiin rafaadka safarka oo dartiisa waxa uu ka dalbanaya Abu Jahl inuu baxo oo u gooracana boqol neef halkan si uu qoodiyo oo ugu taxadarana hogaamiyaashooda maxayl Makka xilligaas waxay ahaydna dhulkii karaamada waqtigaasna suuqa Makka waxa uu kala qaybsanayna ganacsato kala duwan waxaan u sii dheerayna bandhigyadii ay ku soo bandhigi jireen gabayada dadka soo bandhigayna waxa ku jireen Abu Sufyaan iyo kuwa kale aad ayna ugu faani jireen maadaama xilligaas uu ahayn xilligii aftahanimada waxa ayna awoodi jireen inay dadka ka farxiyaan oo ay geliyaan qalbigooda farxadda ayagoo u marsiinayeen shicirkooda isla waqtigaasna suuqa waxa joogtay in Hind oo ahayd xaaska Abu Sufyaan way ku dhex socotay waxa ayna arkaysaa baati waa ayna gadanaysaa dhinac kalena waxaan arkaynaa Abi Lahab oo xaaskiisa ay la dagaashay kadib markii ay aragtayna Muhammad ibn Abdullah maxay ayadu waa iska nacbeed man aysan rabin inuu u soo dhawaado waxa ayna la yaabtayna markas inuu dhex fadhiyana qaaru Xira asagoo qabana Khadiija bint Khuwaylah oo ahaydna mid ka tirsan taajiriyaashii qaniga ahaa ee ka ganacsi jirayna Makka asagana midas muusan ka faa'iideysanaynin waxa aynu ku dhaysay asagana waxa uu noqon karay nin taajir ah Abi Lahabna waxa uu ku dhahay aniga wiilka walaalkii uu dhalayna waxna ma amri kari waxna ma kareebi kari asaga naftiisa ayaana u baqaya maxay yeelay muddo dheer ayuu waxa uu aflagaadeynay ilaahiyadeena waa uu ka shakisan yahay waxaana suurtagal ah in ilaahiyadeena ay ciqaabaan isla waqtigaasna Sayyid ibn Haris oo ahayna wiilkii uu soo korsadayna Muhammad ibn Abdullah waxa uu u tagay Abi Talib oo ahayna adeerka Muhammad asagoo waliba ku dhahayna Khadiija bint Khuwaylah waxa ay raadinaysaa 3 maalin Muhammad bin Abdullah Abi Talibna waxa uu ku dhahay waxa uu ku dhex jiro qaaru Xira waliba ma uusan ka soo daganin anigana waxaan ugu baqayaa inuu kaligiisa halkaas sii joogo intaas kadibna waxaan arkaynaa godka qaaru Xira oo dhacana qorx ka soo baxa Makka reer Makkana waxay u arkayeen inay tahayna meel cabsi leh mana aysan u soo dhawaa jirin nabigana sallallahu alayhi wasallam asagoo maalin ku dhex jirana waxa ku soo daganay waxyiga markii ugu horeysay waxaan u imaanay malakul Jibriil waxa uu u meerinayaa suuratul Alaq habeenkii markii la gaarana Abu Talib waxa uu aadaya gurigii uu joogayna Sayyid bin Harith waana kadib markii uu ogaadayna wiilka walaalkiisa uu dhalay oo la dhahana Muhammad ibn Abdullah inuu dhahay iduduuba uu ku sugneen xaaladiisa dabiiciga ahayd waxa uu ogaanay inay midas dhacdayna kadib markii uu ka soo baxayna qaaru Xira guriga Khadiija markii uu tagana Sayyid bin Harith ayaa waxa uu bilaabay inuu u sharxo xaaladda uu ku sugan yahay waxa uu ku dhahay waxyi ayaa ku soo degtay Muhammadna waxa uu arkayna Jibriil asagoo lehna suurad qof oo hortiisa taagan kadib markii uu isku sheegayna waxa uu ku dhahay adiga waxa tahayna rasuul Alle erigii koobaad ee uu ku dhahayna waxay ahaydna akhri Muhammad bin Abdullahna waxa uu dhahay aniga ma ihi qof wax akhriyo Jibriil hadalkiisa ayuu ku soo celcelinayna wax ka badanna hal mar Muhammadna waxa uu dhahay aniga ma ihina qof wax akhriyo illa markii dambe Jibriil uu ka dhameystirayna aayadaha Muhammadna waxa uu awooday inuu ka daba akhriyo waaba ayadoo aayadaha lagu duugayna laabtiisa mana awoodi kar xataa inuu iloobo Abu Talibna Sayyid waxa uu ka dalbanay inuusan qofna u sheegin hadalkaas uu qariyane si aysan dhibaato aysan ugu geysanin reer Quraysh waxa uu ku dhahay u sheeg wiilka walaalkii aniga sidii aan u difaaci jiray asagoo cunug garis ah ina hadartaana u difaaci doono asagoo 40 jir ah maalinka xigeen waxaan arkaynaa rag kamid ah reer Makka oo ugu soo dacwoodayna Abi Talib Muhammad ibn Abdullah ayku ku dhahay waxa uu bedelay fikirka carruurteena waxa uu ka dhigayaa sidiisoo kale waxayna u sheegayaan inaysan rumaysnayn hadalka la sheegayo oo ahna Muhammad inuu yahay nabi Allah oo u soo dirayna kii basharka dhan abuuray Allahaas waliba awoodan inuu soo saarana dadka dhintay intaysan bixin ka horna waxa ay ku dhahayaan u sheeg waxaan siinaynaa furaha Kacbada iyo hanti kasta uu rabo kaliina carruurteena hanoo nabadgeliyo Abu Talibna waxa uu go'aansanay inuu aadana Muhammad si uu u qanciyo waxaas waxa uu suuraysanay inay dhibaato u geysan karaan asaga nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku dhahay aniga ma ihi mid ka tagayna fariintii uu rabbigeena ii soo dhiibay habeenkii markii la gaarana waxaan arkaynaa dhalinyaro meel fadhis waxa ayna ka doodayeen hadalka Muhammad ibn Abdullah kaasoo waliba ku faafay Makka oo dhan kadib markii uu ku soo dagay waxyiga aykan waxay ahaayeen kuwa aaminsan mana aysan rabin inuu arkana qof kamid ahna reer Quraysh si uusan dhibaato uusan ugu geysanin hal mar albaabka ayaa la soo garaacaya waxa ayna dareemayaan cabsi laakiin salaabtooda waa ay xasilaysaa markii arkeen inuu yahayna Jacfar oo ahayna nabiga adeerkiisa Jacfar bin Abi Talibna waxa uu ku dhahay waxaan idin wadaa aayad cusub oo ka soo degatayna Qur'aanka waxa uu bilaabay inuu akhriyo markii la gaarayna salaada subax guriga Arqam bin Arqam ayna si tartiib ah ugu soo baxayaan ayagoo waliba aysan qofna arkaynin waxaana ku jiray oo kamid ahayna saxaabiga la dhahana Ammar markii uu gurigiisa ku laabto waxa uu arkay hooyadiisa Sumayya iyo aabihiisa Yaasir kuwaasoo habeenkii oo dhan u walwalayay hal mar dhulka waxa ku dhacay mid kamid ah sanamyada guriga yaalay aabahana waxa uu bilaabay inuu soo qabto uraale galiyeen asagoo ka baqaayeen inuu ciqaabo Ammarna waxa uu ku dhahay kan Ilaahay ma ahan eebaa saxda ana ma ka samaysna dhoobo mana awoodi kartaan in aragtaan asagana
waa uu idin jeedaa waana kan had iyo jeer idin caawiyo hooyadana waxa ay ku dhahaysaa aniga waxaa kaaga cabsanaya wiilkaygiyo inay ku haleeyaan saaxiibada xun kuwaasoo aaraacdidna maalin kasto Camarna nabiga sallallahu calayhi wasallam ayuu difaacaya waxa uu ku dhahay asaga ma ahana saaxiib xun waana kii alla uu noo soo diray aabahana waxa uu ku dhahay Maxamed waa nin wanaagsan oo aamin ah masaakiinta ayuuna had iyo jeer quudiyaa acmaal wanaagsan ayuuna sameeyaa hooyadii Sumayana waa ay ashahaadanaysaa waxa ayna gelaysaa diinta islaamka intaas kadibna waxa ka daba islaamayna Yaasir oo ahayna Camar aabihiisa laakiinse nasiib dara maalmaha ka mid ah Camar waxa qabsanayaan reer Quraysh waxa ayna bilaabayaan inay weydiiyaan waxa uu faafinayana Muhammad iyo aayadaha uu aqrinay Camarna waxa uu ku dhahay Qur'aan waaye hadalkiisana ma ahan waa hadalka eeba uu ku soo dejiyay asagoo u soo marsiinayna Sayyidina Jibriil way ku jajeesayaan mana aaminaya mana aysan ku qanacsaneen inay 300 oo ilaah oo sanamyo ah inay ku badashtaan hal ilaah oo kaliya waxayna ku dhahay ilaahideena waa ka ganacsanaa Camarna waa uu u jawaabaya asagoo ku dhahayna Allah dhabta ah qofna ma awoodi karta inay gadato hal mar hadalka waxa ka soo dhaxgala Abijaal oo waliba ku jajeesayna hadalka Nabi Maxamed waxa uu dhahay waxa uu samay adoonkii sayidkiisa waxa uu u yeeray adoonkiisa Bilaal ibn Rawaha ee madoobay waxa uu u dhiibaya ul asagoo ka dalbanayeen inuu garaacana Camar si ay cashar ugu noqoto uu u kala bartana farqiga u dhaxay adoonka iyo sayidkiisa Bilaalna meesha ayuu istaagaya mana hadlayo mana sameynayna waxa la amray waxa uu nadeynaya karbaashkii gacantiisa ku jiray inkastoo Camar uu ka dalbanayeen inuu garaaco uu fuliyana si aysan u dilin taasna waxa ay ka dhigaysaa Abu Jahl inuu aad u sii xanaaqo Bilaalna waxay ahaydna markii ugu horeysay uu caasinayna amarkiisa inkastoo Bilaal loo cadaabayna si xun ma aysan ka soo bixinin carabkiisa wax aan ka ahayn axadun axad taasna waxa ay ka sii xanaajinaysaa Abu Jahl waxa uu ku amraya adoomadiisa inay caloosha ka saaraan dhagax weyn si uu aad ugu sii macaansado xanuunkaas hal mar Sayyid bin Haris ayaan u iimaanay waxa uu ku dhahay Abu Bakar waxa uu rabaa inuu idinka iibsadana adoonkan waxa uu dhiibaya 100 diinaar calashaa si uu u gato Abu Sufyaan waxa uu ahayna mid meesha jooga waxa uu ka kala jaraya hadalka waxa uu ku dhahayaa waa mamnuuc in adoon la iibiyo asagoo ku jiran xilliga ciqaabtiisa taasna waxa ay ka soo horjeedaan xeerkeena Abi Jahlna waxa uu dhahay aniga marbi hal dil ama laga leexdo saacadaasna Sayyid bin Haris ayaa waxa uu u soo ordaya Bilaal waa uu badbaadinaya waxa uu ka qaadaya dhagixii culayska badnaa ee saarnayn calooshiisa isla waqtigaasna waxa uu ku amraya rabbigeena Sayyidina Muhammad calayhi salaatu wasalaam inuu diinta ku faafiyana meel kasta uu gaarsiiyana dadka oo dhan inkastoo ay jireen dad yar oo ku qanacsanaanay jiritaanka rabbigeena iyo inuu yahayna Muhammad rasuulkii Alle gaaladan aad ay ugu badnaayeen waxayna isku raaceen inay ka hor imaadaan oo ay ka hor istaagaan Muhammad iyo atbaacdiisa sidii ay ku gaari lahaayeen Kacbada waxayna sidoo kale rabeen inay ka saaraan Makka oo ay raacdayaan si uusan sanamyadooda u ridin markii Abu Sufyaan uu arkay saxaabada uu ku celcelinaysa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wuxuu amraya ilaaladiisa inay istaagaan Kacbada horteeda si ay ugu difaacaan waxaan iska horimaad ka dhaxdhacayna kubii ka soo horjeeday islaamka iyo kubii xoojinaya oo garab taagnayna Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam waxaana lagu soo tuuraya dhagaxan ilaa markii dambana saxaabadii rumaysayna Sayyidina Muhammad ay ku awoodeen inay ku sabraan dhagaxanta lagu soo tuurayo socodkooda ayna sii wadanayaan waqtigaasna Abu Sufyaan waxa uu ka dalbanaya waardiyaasha inay wadada u furaan maxay hadii ay u diidaan dadka dhan ayaa la safanay maadaama uu ku jirana Maxamed amiinkii ay jeclaayeen ugu dambeyntiina saxaabada rasuulka waxay awoodeen inay gaaraan Kacbada ayagoo waliba shahaadanayo Sayyid bin Haris ayaan hor istaagay waxa uu bilaabaya inuu akhriyana suuratul kaafiruun ilaa markii dambe uu imaadayna Abi Lahab uu u diidayna inuu si dhameystiro uu garaacaya meesha ayuu ka soo dejinaa waxa uu istaagaya booskiisa asagoo dhahayo Maxamed waa nabi beenaala ah waxa uu ka dalbanaya ilaalada inay garaacaan saxaabadan waxa ay bilaabayaan inay difaacaan Maxamed rasuulkii Alle waxa ay iska celinayaan waardiyaashii rabayna inay garaacaan ilaa markii dambe laga awood batay sababtoo ah tiradooda ma aysan badnayn hal mar waxa ay maqlayaan codka faraska ee xaggooda u soo socdo Abu Jahl waxa uu u baaqaya waardiyaasha maxay meesha waxa imaaday Hamza ibn Abdul Muttalib oo ahayna adeerka nabiga sallallahu calayhi wasallam dhamaantoodna waa ay aamusayaan meesha dhanna deganaan ayaa daboolayso Hamzana si tartiib ay ku jirto ay wax ugu soo deganaya faraskiisa waxa uu bilaabay inuu qaasad uu ka soo baxsadana garabkiisa waxa uu canaananaya Abu Lahab iyo Abu Sufyaan asagoo xanaaqsan maxay waxa ay la dagaalameen raggan ay ku wadanina wax ay naftooda ku difaacaan oo hub ah markii Abu Jahl uu caayina nabiga sallallahu calayhi wasallam qaasadiisa ayuu ku dhufanaya asagoo ku dhahayo ma waxa aynaysa wiilka walaalkii uu dhalay anigoo waliba diintiisa ku jiro oo dhahayna waxa uu dhahayo ku soo celi waa kaasaahay marka la hadii aad awoodid Quraysh oo dhanna waa ay cabsanaysaa mana awoodayaan inay hadlaan saacadaasna waxa uu dhahayaa Hamza oo ahayna adeerka nabiga aniga waxaan xoojinayaa diinta Muhammad waxa uu ka dalbanaya hadii uu jirana qof geesi ah oo isku taagi kara asaga inuu hortiisa imaado dabcan qofna ma awoodaysa inay hor istaagto maxay wax ay ka baqayeen xataa inay la hadlaan qaybtii koowaadna waxa ay ku dhamaanaysaa adigoo muuqaalka like saaraysid oo YouTube-kana khulaasada filmadana subscribe saaraysid Ramadaan wanaagsan waa inoo qisada qaybteeda labaad mac